Markii la gaaray maalintii kale, Nabi Muuse ayaa u soo baxay si uu sidii caadada u ahayd ugu yeero dadka caabudida Alle. Qaaruun oo xalay sii degay dhagar ayaa u yimid Nabi Muuse, wuxuuna dadka hortiisa ku yiri, qofkii qof ka sinaysta maxaa lagu sameynayaa? Nabi Muuse calayhi salaam ayaa yiri, qofkii sinaystay isagoo xaas lahayn waxaa la jeedaalanayaa 100 jeedaal. Kii sinaystay isagoo xaas lehna waxaa lagu dilayaa dhagax. Kadibna Qaaruun ayaa yiri, ma hataa adiga? Nabi Muuse calayhi salaatu wasalaam ayaa yiri, haa xitaa aniga haddii aan sinaysto waa la ciqaabayaa. Qaaruun ayaa yiri, dadku waxay leeyihiin waxaad ka sinaysatay haweeney. Nabi Muuse ayaa yiri, keena gabadha sidaa tiri. Waxaa loogu yeeray haweeneydii, waxaana la hor keenay Nabi Muuse calayhi salaam. Kadib wuxuu ku yiri, waxaan kugu dhaarshay Allihii kala baray badda, soona dejiyay kitaabka Tawraad ee runta sheeg. Haweeneydii oo hadalka Nabi Muuse cabsi ku abuuray ayaa sheegtay sida xaqiiqada ahayd ee in lagu yiri ku been furo Nabi Muuse. Nabi Muuse calayhi salaam ayaa markiiba sujuud la dhacay, wuxuuna yiri isagoo ilmeynaya, Ilaahu haddii aan rasuulkaaga ahay daraaday u carow. Ilaahay ayaa amray dhulka inuu adeeco Nabi Muuse, sameeyana wixii uu faraba. Nabi Muuse ayaa isugu yeeray reer banu Israa'iil, kadibna wuxuu ku yiri, Ilaahay sidii uu iigu soo diray Fircoon ayuu Qaaruun iigu soo diray. Qofkii aniga i adeecaya ha soo raaco oo ha isaga yimaado Qaaruun. Reer banu Israa'iil ayaa la saftay Nabi Muuse marka laga yimaado 2 nin oo iyagu go'aansaday inay Qaaruun la saftaan. Kadibna Nabi Muuse ayaa amray dhulka inuu la jaro inta uu ku taagan yahay Qaaruun iyo raggii la jirsadayba. Markale haddana wuxuu amray inuu dhulka la go'o hantidii Qaaruun. Markii uu gaaray salka hoose ee dhulka ayuu oodmay dhulkii, halkaasina waxaa ku soo dhammaaday waayihii iyo waqtigii Qaaruun iyo maalkiisiiba.